محمد فارح ولي ثاني عبد الله داش محمد عبد الحرسي مذوبة يعني قوم محمد عكودة waxaan maanta sanadkii waxaa dhamaanaya maadiga ahaa 2017kii waxaan la galayaa sanadkii maadiga ahaa 2018 waxaan rabaa inaan wax ka ogaado waxyaalo badan baa jira aan wali aanan kulay baan u meelaan joogaan laga hadlin oo ah waxyaabaha social problem-ka na haysta oo naga haysta waddankan iyo waxyaalaha na soo food saara bal maxay tahay laas 30 sano aan ugu halkaan waddankan jooga inta ugu badan dana Soomaalida inta ay in ka yar bay joogaan maxamed Saciid maxay kula muuqataa tan iyo waqtigii aan nimaaday ilaa hadda horumarka aan gaarnay ama arrimahana soo food saara maxay oo ugu muhiimsan اوكي السلام عليكم horta maxamed saciid miyahay maxamed aadan ahay su-aasha marka ay tahay laas 30 sano ku noolaa waddankan waxaa naga qaldamay oo nolol ahaan iyo sidaa caruurteen u korsanay iyo caruurtii aan ku khasaarnay oo first generation noo ahaan lahaa marka waxaan jeclahay topiceen inuu yahay caruurteennii aan kala soo qaxnay dagaaladii iyo ka dhacay Soomaaliya in sidii aan ugu talagalnay ama aan islahayn asa Soomaali ahaan iyo dhaqankeena suu ahaa iyo waxaan filinaynay inay isbedeshay oo waxyaabo aan filinaynay noo soo baxeen marka wixiina waxay u baahan tahay in meel la saaro inay dadku qoys bay u degan yihiin waxaan kusoo galnay family bana wuxuu ka kooban yahay la caruur iyo hooyo aabo soo caruurta koritaankeedii aniga ahaan waxaan qabaa inaan ku failgarowska waxaa la dhahaa haddaan Soomaali ku sheego inaan dayacnay anagi oo dayac anaga naga yimid dayacaasoo keenaya dadkii oo ayagoo fakri ah ama dhaqaale haysan soo galeen waddankani waxay ku noolaayeen dawladda assistance siinayay dadkii nooga soo horeeyena ay dhimaadeen anigu kuleyba 90kii aan imid laakiin dadka xoogooda 90kii imaadeen dadkii naga soo horeeyena waxay yimaadeen 85tii 86dii dadkii naga soo horeeyena waxay u badnaayeen dhalinyaro 90 waxay ka dambeeyeen waxay ahaayeen dad fahmid ah marka dadkii waxay door bideen inay meelo raqiis ah oo ay isdhaxaan waa idii jaban tahay ma aqaan ma dhihi karo leysinimo laakiin waxaan dhihi karaa xoogaa dadka hadduusan ayadoon investment haysan ama dhaqaale haysan waddan soo galaan waxay ka bilaabayaan poverty-ga macnaha waxyaabaha meelaha makin oo poverty-ga guryihii waxaa la galay oo housingkii dawladda ahaa ayadoo la isku ammaanayo oo la leeyahay oo guri waxaan galay oo housing ah $100 aan bixiyaa ilmihiina markaa waa yaraayeen oo bar wax kasoo socda dadka may ogey aniga ahaan maxamed aadan nin waxaan ahaa sportsa oo cayaari jiray oo dadka Soomaaliya oo magac galaa kamid ah markaan soo galay aan maadaama aniga hobkiya tahay caruurna aan qabo waxaan se organize gareeyay inaan caruurtii kuwayga ku daro si aan u cayaarsiiyo wixii dhamaan kadibna waa arkaa because caruurta badankooda anaa right siin jira Soomaaliya yaqaan inuu right soo siiyo wuxuu garoonka keena maba jiraba waa inaad adig soo qaataa ama qofta kuu keenaysa inay noqotaa marka waxaan qabaa waxaana falgareeyay oo aan ku dhacnay waxay tahay annagaa ka mas-uul ah aabba ahaan iyo hooyo ahaan ayaa ka mas-uul ah maxaa yeelay guryaha dawladda waxaa deganaa dadka low life-ka ah walow aniga aan arkay oo ka digay maadaama aan dhalinyaradan ku dhex jiro aan arkay attitude-kooda suu yahay markay soo weynaadeen 17 iyo 16 markay imaadeen in ay isbedeleen isla markiiba aan ku arkay falal xun ayagoo sameynayaan kuwii aan damca inaan ka saarana in intii joogta maalin intii kale ay raacday
qof walboo Toronto jooga oo oday aabba ahaana wuu ka warqabaa. intaan isugu yeeray waxaa yidhi warnimayow dhibaataana soo wajahday waxa kan anaa ka warqaba oo la joogay idinka ma joogtaan oo tiim hortanada yaa ka sheekeysaan iyo markaa waxaa jiray kafitaan baa la jiraa jiray kafitaan baa la fiirsan jiray anaa ka warqaba caruurta meeshaan ku koraysa islaamakan iyo odayaashan hal yiraahdo gacmaha isqabsado ilmihiina haysta lacag geliya lacagahana diraysaan oo leedihiin Soomaaliya iyo reer hebel aa leedihiin waxa way tari mayso inaan arrimaha bulshada caruurta ku xoojino ma ahani haddiinan sameynina dhibaata dhacaysa marka dadkana waa iga dambeeyaan intaasaan aniga hadda ku koobaya wixii dambana oo kusoo noqon doonaa marka anigu taasaan aaminsanahay xoog ahaana wixii aniga xoog aan u leeyahayna kulli waa ka warami doonaa dadkana waxaan jeclahay inay ejikad gareeyo oo tuso habka iyo wixii lagu feelgaroobay anigu aabbaan ahay waxaan aaminsanahay cunug kastoo Soomaaliya inaan aabbo ahay si ay iga tahay oo aan sameeyo dadkii igu yaqaanaan qof walbana i garanayo og yahay inta aan hawl kasoo qabtay cunug Soomaaliyeed u sameeyey dhibaato badan ku galay marka wax hadda aan ku feelgaroonay intaasaan oran karaa wixii kale waan iska soo noqon doonaa waad mahadsan tahay maxamed aadan madoobe raash adiga baa nafta naga qaado ninkeenana ma noola waana baabi'isa seen yarna waxaan nimayow dhegeysta baashaan waa iska ilaalin karnaa laakiin waxaan yeelaynaa waa inaan qofkaayo usoo naayo marba intaan qoor u gelino oo markii soo kacdaba soo caro dhaw saa u kala carana anagana tiya waxay noqotay waxaa layidhi ninka qoorta loo gelin lahaa rabaa baasha oo qaadi lahaa nin walba waa diiday wuxuu yidhi adigu qaada qoorta gasho wuxuu yidhi maya elaheka alla aniga maa hadda iyo aan maxaan feesgarinaya makulaashii iyo awowgii iyo awoyaashii dadkii dhan lahaysay maya ma jirto hebel maya ma jirto markaasa waxaa okay waa yahay kulligeena qoorta aan wada gashano kulligeen aan qoorta wada gashano marka qoosiisa ninka subdara waxma idin sheegaa uu yidhi haa walamiya wuxuu yidhi aniga baashaan qoorna gashan mayno cid wax iska celin karta ma lahani nin walba nafta iyo nabi ummadaa nin walba suu isku badbaadin kara asaga ha isbadbaadiyo oo hadduu dhihi lahaa cunugeyga jaamacadeed dhigtaan iyo hadduu dhihi lahaa aniga cunugeyga dhibaatadan kuma jira iyo hadduu dhihi lahaa kalmaan marka nin walba hadda Soomaalida imtoo degan waxay noqotay inay yiraahdaan nin walba nafta nabi ummadaa cid usoo jeeda caruurtan laayo ama fiil gareynaya inuu aabood yahay wiilkiis inuu lamid yahay inay lamid tahay dadka kale inuu waxaan tomorrow odayaal badan waxaa jiraan ka wada sheekaysanayna barnaamijkan markaas waxayna marka problemka ugu weyn aniga aan qabo waxay tahay waxaa waaye cunug baa la dilaya cunug ninka kugu soo horay kusoo waxa wuxuu ku leeyahay walaa wiil reer hebel la dilay war waxaan dhahay ninkaan reer hebel intaa ka daysay waa wiil Soomaali la dilay ka daa reer hebelka oo waxaan dadkaan lama kala jeclaa oo mana kala jecla dadkaan waxaa tahayba ama reer hebel ahaw ama reer hebel ahaw waa isku midaad tahay hal habaa tahay ninkaa Soomaaliga ah ee East Africa ka imaaday ee muslimka ah ee madowgeynaysan u aaminsanin xataa oo marka wallahi Edmonton hadda caawa meeshaan dad badan aan sugeyn inay imaadaan sida hadda igu maqaalo ah dadku waxay ku maqayeen waxaan dantooda ku jirin ay imaadeen dhowr qofood markaan la hadlo waxay yiraahdeen nin baa imaanaya oo dowladda federaalka ku jira oo ka imaanaya waddanka I don't have to hide this waa inaan sheega waay marka oo maxaa dhacay aad u imaan weysay meeshaasaan iga wahay oo anigaba halkaasaan kaa wahay kaale odayaal aan tashanay aan ka wada hadalna barnaamijkan caruurtiyada la leynaayo caruurta tan wiilasha u nahay mise waxaa leedihiin u raacshey oo aniga cunugeyga dhibaato kuma jiro oo jaamacadu dhigtaa marka I hope dadkaan inay arkaan dhibka Soomaalida haysta aniga waxaa aaminsanahay dhibkaan inay qabto gabdhaha Soomaaliyeed inuu dhibkaan haysto oo uusan ragba haysanba aysan kala jecleen
waddankii oo baaba-ay iyo meeshaanan ku baaba-nay maalmo gabar 18 cunug jiro ama 20 jiro oo intaas soo korsanaysa kii dhalayna uu ka maqan yahay oo aadi Soomaaliya oo yiri oo noloshii waa bedelanaya intuu ka caray kaawarnimadiisa ka cararay caruurtiisii uu yiri mataqaana ii sheegay Soomaaliya jaga ka dooranaya ama Soomaaliya aadaya ka bacdina gabar yar oo miskiin oo waxba kala ogeyn lagu guursado meesha caruur hadda ka horna bilaabo gabadhii miskiinta ahayd oo looga tagay caruurta halka ayadoo ku haysta 7 caruur 9 caruura aysan la hadli karin ma ognahay in hadda ka hore waxaa dhacday sook yarashay gabar baa maalin walba cunug ilmay keentaa ana wanayna sheega magaceeda markii dambe waxaan ku yidhi aaw ninkaagii adaa maalin walba meeshaan keenay bas waxaa tiri ninkaygii Soomaaliya jiraa oo gabar yar buu ku guursaday oo kuwa kana waa ka dhaqaaqay tiri kuwa kale iska bilaab marka gabdhaha aniga waa idila dareemaya xanuunka aabba ahaan waxaan aaminsanahay inaan aabba ahay waxaan aaminsanahay caruurtan inay caruurteedi tahay Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay haddaad u istaagtaan gabdho yahow odayaashan qabiilka wada dhameeyey oo intaasoo sane waddankeeni 27 years ee ku heshiin la umaleymaayo inay hadda xal keenayaan ama ninka intuu kusoo waca ku dhahaya wiil reer baraa la dilay caruur tigso inuu xal kuu keenayo marka waxaan idinka rabaa inay istaagtaan caruurtiina u istaagtaan aydan dib gambanin informationka la bixiyo la sheego wax ka dambeeya saas ayaan wax ku xalin karnaa haddii aan wax sheegno hadda ka hor waxaan ka tirsanaan jiray meel aan deganaa Scarborough community center ayaan waxaan Scarborough ku taalo community center ahead way dhaweyd markaas waxaan deganaa aniga Don Mills aan deganaa 5 Cora aan dhigay aan deganaa building there marka hoosteeda waxaa ku yaala meel community center community center-ka maalintii ugu horreysay waddankii imaaday banaanka ay ku dheelaayeen waa tegay meeshii anoo la cayaaraya meesha ninba ima qaadanin meeshaan taagnaa inaa cayaaraan rabaa marka caruurteeda yararka waa ila socdaa meesha meel Jamaican ku wada cayaaraya meesha meel xeer Jamaican oo Scarborough marka aan waddanka war uma hayo I don't know waxaan joogaa 2 weeks 3 weeks dharkayga soo gashtay meesha imaaday meeshii nin martiyaan ku ahay nina ima yaqaano waa iska aamusay meeshaas ka joogaa markay baxaan markii dambe nin odan hey African man wiil dhahay oo kaan aniga la cayaar markay galabnimada tahay markii meeshaan kula cayaaray garoonka waa galay waa iga reebi waayeen waxay dhaheen nin Africa boolice aan dheeraa weligeed ma arkin niyo mida odaya imaad wuxuu dhahay niyo kaali caawan ciyaar yar ahaya maadaama inta degan tahay ciyaarkan ila coach garay ninka Thomas aan dhahay nin madow Jamaican ahaa waxba kama laban karo meeshaan tababarkii waxa uu sameyn jiray oo la ciyaari jiray ciyaarkii marka waxa way mid la dilay iyo mid aniga maalin ila dagaalamay marka imaad wuxuu dhahay kii ishaada heshay maxaa dhacay xalay madaxa laga toogtay waxaan dhahay I thought in a happy noqonaysa wada mugta ninka kula dagaalamayo ah mugta maya dhahay that the kid oo ayaa dhahay he doesn't know anything about waxaan adduunka waxba kama warqabaa ninka ani weyn ahay marka waa fahmi karaa raali kamiya ninkii marka soft ma jiro waxaas aan la yaabay waxa loo soo kariyo waa barnaamijka in community-ga dhexdooda ku jiraan wiilka la dilay waa la sheegay qof sheegaya male marka waa iga dhexdooda mugta ninka ku dhahay Thomas waxa loo sheegay waa ninka waa la yaqaan maxaafadda lagu tilmaamo wuxuu dhahay baalkan waxaa jiro snitch waxa ma loo dhahay problemka jirana anigana heestana waa sheegitaan la'aan oo aan la sheegin haddii la sheegi lahaa ninka meeshuu joogaa haddii la sheegi lahaa waa la qaban lahaa problemka waa laga istaagi lahaa sababta aniga oo naloo qashin waayo ma lasi sheego saas miyaan dhahay waayaan aniga markaas ma aaminsan waxaasoo waxaan leeyahay aniga waxba kama qaban karaay islam my community everything dadka diilay ma la hadli karaba okay marka saasaan ku ogaaday barnaamijka laakiin waa dambe baa ninka odaga isla hadalnay hal qofaa forward imaaday oo sheegay case hal case oo sheegay caseki markuu sheegay oo weliba hooyooyinka ah markay sheegtay wixii ka dambeeyey problemkoodii waa ka yaraaday intii
because waxaa bilaabatay nasashaan taas horta xogdaan aan wahay oo waa ka warhaya marka anaga dhibaatadan haysto waxaa waaye gabdhihii wiilay soo korsadeen 18 sano 20 sano markay sugaysa asagii in uu wax taro oo aabiyana ka maqan yahay keligeed haysato cunuga waa laga dilay hawlxumo iyo ohin iyo dhibaato marka waxaan idinka Soomaalidu waxaan u sheegayaa odayaasha inay ka waajoogaan waxyaabaha muhiimka ah oo ay u baahan yihiin inay ka dagaalamaan inay usoo jeestaan dantooda iyo caruurtooda futurekooda iyo kuwa awoowaha u yihiin futurekooda waddankan ku nool ama ku noolaan doona si ay u badbaadiyaan ayaga annaga waxaan nahay qorax sii dhacaysa waa weynaani lixdan jiraan nahay lixdan jiradana marka intaan nooshahay waa inaad ka tagtaa wax wanaagsan halka wax wanaagsan markaa ka tagtid beritoon waa lagu sheegaya waxaa laleeyahay ninkii hebel ahaa oo magaaladaas noogu noolaa ilaahay khayr ha siiyo system xun anigoo ku dhex jirnay ayuu naga badbaadiyey waxaan aaminsanahay magaaladan joogo 300 oo family ama 400 oo family dadku waa ka badan yihiin inay Soomaali badbaadin karto waxay ku badbaadin kartaa dhaqaalahooda waxay ku badbaadin kartaa tashi waxay ku badbaadin kartaa hal meel laga soo wada jeesto waxay ku badbaadin kartaa waxyaabo badan marka ha noqonina dooligii u tashawaaya makulaasha oo yiri nibo nafta nabi umada marka wixii kale su'aal qabta way ka jawaab inta soo keenaya tashi مرة السلام عليكم سيد محمد أبو شيخ دبعت على عضي دبعت وارد من والآن يجاليد أهم وأنا فهم الناس سيد محمد ما شيء عمل هذا الشيء انت سؤال ما انت إلا سكوية بعده ما جبت دعم من حاجة عرفت إنت شو كل هذا تصوما وعم كهل ليه عرفت دبعتها كل هذا أنا كوميونتي كان كهل لأن دبعتها هسه لكن هذا واحد كهل كوميونتي ها كوميونتي ما شو ها كوميونتي دبعتين ده هنا عبارة جوا حال كذا أنا أقوله وحكي لي عن مسكو إيمان كرينين سوى الجرا وحي ومحل كرم كوميونتي هذا اللي هذا organization هذا هالكا كفر فرها تاتر هذا وعدت اسكو دي واحد waxay isku dayaan inay midoobaan laakiin aan rabin inay midoobaan ama inay dadka tusaan miya ma aqaan way isku yimaadaan dadkay tusaan inay rabaan inay midoobaan inay rabaan laakiin actually ma rabaan waxay xalinaysaa midowga ya xalinta taa wax inay midoobaan xalin ah waxay xalinaysaa marka waxay wax kasta xalinaysaa haddii ummadda ay midowdo waxyaabo fara badan ay xalinaysaa waxaan ma dhacdeen dhibaatada carruurteeda ku dhacda ma dhacdeen nimankaan iska baxayo Soomaaliya aadayo gabdhihii masaakiin soo guursan ma dhacdeen haddii la midoobi lahaa marka waxbaa la isku sheegi lahaa markaasi waa sidee ninboo naftaa nabiyo ummadda taasaa dhacday marka taasaa keentay marka dhibaatada inay sii socoto taa haddii la joojiyo oo la midoobo waxaas dhibaato ma jireen ama dhibaatada jirays waa yaraan lahayd waxay tahay xalka lagu midoobi karaa good question I don't know wax lagu midoobi lahaa laakiin in Soomaali ay midowdo ورجاليته دكن إدمنتان بيكسالتها وحول لكن أنا مرة إنه كل بزواج مرة كي عقود بالو غير هذا كي وحتى فرد بعتها هذا وانا مرة معني تاوا كي مش تاوا واحد كسر شيء أنا مرة بينا بوري لمي ذو كي وحوا نن أو عدالة كهرلا متجعلي يقدر بقى تاكلي واحد لا إسلا فهن اللي هو وح كلامه marka dhibaatadaas inta jirtana hadee maaragtay dhibaatadeen waa nala sii soconaysaa marka intaa uga baxay hadee asalaamu calaykum Edmonton hadda say tahay shaqo badan bay u baahan tahay inay si la isugu ay meel u wada maraan laakiin kolleyba lagama quusto raxmadda ilaahay lagama quusto waa in gacanta lagu hayaa oo loo yeeraa oo bal waxa la isku dayaa sideedana
waxyaalo badan baa hadda meelaha laga hadlayay mawduuca in qaarkood ku jiro iyo inayan ku jirin ma kala garanayo laakiin waxaa muhima haddaad caruur ka hadlaysid bal horta youthka aad ka hadlaysid umaba hadli kartid iyagu haysu hadleen laakiin waa in la tusaa meesha siday hogaankii sidii ay meesha mari lahaayeen dad oday ka hadlaysid iyagu waa in ka hadlaan community haddaad ka hadlaysid community waxa weeye xaafadda Castledon dadka degani waa hal community North East kuwa degani waa hal communityyaal kuwaas weeye laakiin sida aynu inagu qayb xakood baa ka haystay qayb anaa ka haystay qayb ninkaa ka haystay maaha taas community waa nin walbiiba saaxiibadiis buu ka haystay siduu u ka haystayba si kastaa ku ka haystay marka waxa weeye lagama quusto raxmadda ilaahay hadda waxaa moodaa dadka qaarkiis inay garteen oo in wax qaldan yihiin marka haddiiba la gartay in wax qaldan yihiin faa-iida weeyahe aan ku sii wadno aan gacanta ku hayno aan isugu yeerno dhalinyarada isugu yeerno islaamaha isugu yeerno odayaasha isugu yeerno oo bal inay wax qaban karaan iyo in kale bal horta ha isku dayeen haddaan saas la yeelin oo aynaan isku dayin oo juhdi gelin oo wakti gelin waa la sii kala lumayaa marka ma rabno in la sii kala lumaya waxaan rabnaa at least inaynu waxuun bilowno oo la dabagalo oo aakhirka intaasoo sano kabacdi ay hagaagto السلام يا أحمد مدوبي أحمد ما محمد مدوبي مدوبي إسكده مدوبي waxaan ku weydiinaya hadalkaaga xal waa kula jeclaaday magacaas waxaan ku weydiinaya maxaad rajaynaysaa community-da aan ka hadlo hadda barabti laga hadlayo community-da aniga uma arko wax dhib badan community-da waxbay haayaan waxbay qabtaan qof walbana falsafadu wata waayo qof wuxuu watana ma ka baabi'in kartid aniga waxaan aaminsanahay ayadoo dadkaan meelahooda kala joogaan oo say rabaan qorqoda laakiin unity in la sameeyo la wada shaqeeyo ee dadka wada shaqeeyaan shaqada markay imaato Soomaali markay imaato qof walba uu dhaho that's the number one laakiin maslaxadeeda gaarka ah meesheeda aan ka barbaarto laakiin markay noqoto dhib Soomaali markuu imaado kulligeen xalaanahay that's very good idea waxaa kasoo qaadataa mogtahay runta haddii la sameyna qaaradeena waa aragtay Soomaaliya intay dhir la eg tahay intay la eg tahay barwaaqada dhex taalo markaad jid ku socotid waxaa laga yaabaa 3 hours 4 hours aniga coast to coast waa drive gareey waxaa laga yaabaa 3 hours oo drive gareynaya laba qof arkaysid male baabuurkaa hor imaanaya ma arkaysid dadkaa hor imaanaya ma arkaysid meena tegaysaa tuulo ah ama wax noocaas waxaa arkaysaa 4 qofooda meesha fadhida dhul weyn waaye oo tiro ka batay kaas haddii lagu heshiin waaye kuwa inta joogo kuwa xagga joogo oo yar waaye oo yariis oo intoo yar ah marka kuwii ka badnaa aa ku heshiin waayeen marka you think inay intay mataaudhahayo aan ku heshiina barnaamijkan waxba inayaan lagu heshiina Soomaaliya lagu heshiin hal dhaho waxaan ogaano nimayo anaga kulligeen Soomaaliya nahay adiga maslaxadaada raadso laakiin that's what I'm thinking on here. I know what I'm thinking. That's my country. Okay. Marka waxaan aniga qabaa. I think sometimes in a break qaadatiin oo ka fikirtiin. Waxaan u fikiraa waxaan maalin bal soo maray. Everything maalin bal aragnay. inoo soo gasho bas wax bahalaha memory-ga ugu baxay laba su'aal waxay baa isku dhawaanayeen kala fogaanayeen okay community-ga bas aan ka baxno marka community-ga horta heshiisiis la marabo dadka hadday rabaan inay wax bedelaan waxaa bedeli kara inta diyaar waa inay bedesho meesha tana mainly waxa wax lagu bedelaa waa dhaqaale mainly waxaa lagu bedelaa hadday arrin xalinaysid basically wuxuu tahay waa dhaqaale
marka dhaqaalihii iyo futureka kuwa soo socda kuwii la dilo waaba la dilaba oo waxay noqdeen macnaha dadaan xaqoodii la raadinaynin ciddii raadin karta xaqeeda ha raadiso laakiin kuwa hadda soo socda ee yaryarka ah ee dhigta maxaa la dhahaa junior high-ga iyo dhigta iyo maxaa la dhahaa isheeg iyo elementary schoolka iyo high schoolka kuwa hadda galaya gareetanka ah oo mataqaanaa stiilku maqlaayo kuwaasi ha loo sameeyo barnaamij mataqaanaa isheeg in hadda dadkii waalidiinta inay investment geliyaan carruurtooda hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd sports hadday noqon lahayd wax walba sportsku waa fara badan yahay waddanka hockey laga cayaaraa macalimiina meel walba boor ku qoran yihiin so you call them waxaa cunugii geli soomaalida way awoodi kartaa waxaan kula talin lahaa mideeda kalena may barnaamijkaas community inta halkaas uga baxay marka topic kale noo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waqtigiibaa inoo ku taagan maxaa rajaa aynu leenahay in dadkeenu inay dantooda gartaan ay midoobaan si ay xal arrintooda xal u helaan okay 2 minutes 2 minutes okay rajada la leeyahay in la midoobo oo loo midoobo dhibaatooyinkana haysta sida looga bixo okay soomaalidu waxay u baahan tahay waxyaaba badan laga jikad karay waxay u baahan tahay waxyaaba badan oo wacyigelin badan ay u baahan tahay la sameeyo aniga aabaan ahay majority waa ka warqabaa waxaa jira waxa socda waa ka warqabaa I know waa idinkaga dhawaaya carruurtan soomaalida dhan waa ugu dhawaay aaba kasta waa ugu dhawaay haddeetaan joogaanay YMCA-da every night aan tagaa so cunug kasta oo meesha imaado waa aqaanaa kuwii la dilay iyo kuwa oo hadda meesha joogo majority waa garanaya because waxaa waaye abura time waxay u baahan tahay su-aasha waxay ahayd rajada aynu leenahay inuu dadkeenu midoobaan u midoobaan doonto rajada wallahi arrintaan wax ka qabtaan waxay u baahan tahay in arrintaa wax ka qabta arrintaan rajada wax laga qabanayo waxaa ka qaban karta maya rajo ma ka leenahay rajo waa laga leeyahay waxa laga rajo dhigi karaa ma jiro taas waa hadda aan u hadlayno in dadka la jikad gareeyo loo sheego waxa dhibka uu yahay dhibka uu yahayna waxay tahay inay carruurtooda investment geliyaan waxay tahay inay u istaagaan carruurtooda lacagahan iyo waxaanay sameynayaan mustaqbalkooda inay ka hadlaan lacagihii waa haystaane inay carruurtooda ku isticmaalaan rajadaasi aniga always waa leeyahay waana filayaa dad u istaagay la heli doono insha allah maxay tahay rajada aan qabno inaynu midowna sina haddana maya rajada haddii la yidhaahdo in soomaaliya ay midoodo ay danahooda qabato way dhici doontaa marka haddaan araan britain bay dhici taasaan la ogaan kara marka xaaladda hadda lagu jiro maaragtay nama tusaysa mar dhow inaan midoobno oo danaheena aan ka tashano carruurtayada lalaynayo aan ka hortagno annagoo midaysan aragtidayda aniga pessimistic mihi dad laakiin way fogtahay xaaladda hadda aan ku jiro sida haddaad fiiriso rajada way fogtahay rajada way fogtahay rajada aynu qabno inaynu midoobno danaheenu midoobno rajada aynu qabno inaynu midoobno waa wanaagsan tahay haddeeraynuba mid nahay laakiin qofka u qaba inay meel fog jirto meel fog ma jirto rajadeenu inaynu midoobno haddeeraynuba mid nahay anigu ma qabo qof baa soomaaliya wax xun u horseedaya hal qof ayaa wax badan haleyn kara hal qof ayaana wax badan hagaajin kara waddanka la yidhaahdo waddanka biyuhu qaadi jireen oo halkan oo hadda maraykanka kasoo cararayen dadkooda oo dadkan madowga halka degan haiti waddanka la yidhaahdo gobonnimadiisa waxa usoo ahaa nin xiran xabiska ku jira inaguna maanta inaga oo awood kasta leh dadkeenuna sidooda dad hambara oo la xukumi kara yihiin ma oran karno rajo kama lehin inaynu midoobno ani waxaan qabaa haddeeraynu mid nahay laakiin waxaa loo baahan yahay mawduucii iyo subjectgii laysugu iman lahaayo keliya inaynu keenno asalaamu calaykum sanadkan soo socda maadigayo 2018
maxaa rajaynaysaa wallahi maalintii oo dhibaatada nagu bilaabtay ilaa hadda rajaan ku jirnay rajadana waxaa waaye uma baahna inay waqti dheer sii qaadato sanadba sanadku ku darsoomo cunug baa soo kacaya annagana waa sii duqoobeyna mid kala soo koraaya annaga da-aan ugu sii darsoomaysa kulloo sitaan joogeyno waxaan u baahannahay haddii wax laga qabto intaan nool nahay qofkan waxaa fiican intuu noolayaan wax qabto waxaa la qof dhinta kabiisaa ka fiican waa dhimanaysaa your history ciddan buu kaa sheekeynaysaa ma jirto ninka ku nacbaa iyo ninka kale wuxuu ku leeyahay nin rag u ahaa ninkaas inta aad joogtay waddanka dad ku dhehaysa male intaad nooshahay qof wax kuu sheegaysa male marka waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool qurbahoo dhan hal situationaa haystaa situationkaasna waa isku mid waa tegay Holland waa tegay Ingiriiska waa tegay Sweden and Minnesota, Toronto, Ottawa, inta Vancouver, Seattle, Washington hal habaa haysta waana hal isku mid ah waxaana ka mas-uul ah dadkii awlaada dhalay marka waa inay dib ugu soo noqdaan ay ogaadaan qaladaadkooda cidda hadda isqabtana ha isqabto carruurtooda ha wada haystaan cidda haddeertaana isqabina ha lagu mataqaanaa isheega lagu mintada carruurtii qarashna hala geliyo rajada waxay ku xiran tahay dadka inay nin walba hadduu rabo individual ha u sameeya iyo haddii rabo tugada ha u sameeyaan in carruurtooda ay geliyaan lacag geliyaan oo ay iskuulaad geeyaan oo private geeyaan oo sports ku daraan cunug waxaa lagu rabaa for example waxaa arkaysaa guryaha la degan yahay waa intaanoo kale waay cunugan energia ka buuxa waa 10 jir 12 jir 13 jir waay wuxuu rabaa inuu ordo habar keligeeda haysta maanta inu kasoo shaqeynaysay Walmart ama soo xamaalaysa guriga imaanaysaa awood uma haysan inay banaanka u bixiso odayg waa ka maqayaa listen ma joogo odaygi waa tegay isgaan afrika u jiraa so cunuga naga fariiso waa naga fariisa meel maanta cunuga hadalka ugu horeeyo barto waxaa waaye uu yaqaano naga fariisa meel wax kale uu yaqaano iyo in kaba lagu tuuro iyo kuwa lagu tuuro midda male because waxaa waye cunuga in banaanka lasoo bixiyo waxaa jira YMCA jiraan xaggeeyaan YMCA-da cunuga ha ordo islaamaha hadda way jiraan kuwa keenaan way jiraan laakiin waxay fadhiistaan meesha fadhiga fadhiistaan aniga waxaa inaan kaaliya soo galo gudaho cunugiina asagoo cayaaraya fiirsada ama muraayada ka arka hayda arka asagana marka ilmaha kani iyo carruurta tani waxay u baahan tahay wakti la geliyo gaalada iyo dadkaan ala noolnahay ajnabiga ah carruurtooda wakti badan ayay geliyaan waktigaas badan ay geliyaanna waxaa usoo baxa wax taya leh waqtigan oo kasa 2018 rajada waxaa ilaahay ka rajeynaa 2018kiina ilaahay nooga dhigo tii ka wanaagsanayd sanooyinkii aan soo dhaafay 2007 iyo dhibaatadaas inaan ka baxa taasaan ilaahay ka rajeynaa laakiin haddaa i weydiiso rajada kale oo maarata soomaalinimada iyo communitiga iyo maaragtay ilaa hadda waa aaminsanahay kuwa haddii laga sugaayo inay midoobaana hadii ku taala laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ma ka qusanayno ilaahay maaragtay rajada in 2018 inuu ilaahay nooga dhigo tii ka wanaagsan sanooyinkii aan soo dhaafnay amiin rajada 2018 iyo wixii ka dameeyaba waxaynu malaynaynaa inay noqoto wax wanaagsan dad koob lagu dhiibo oo biyaha ku jira nus yihiin haddaad tiraahdid koobkan waa half empty waxaad tahay pessimist haddaad tirahdo waa full empty waxa weeye nin wanaagsan optimista oo meel kale marka inaynu taas ka dhoofno oo niraahano 2018 and comes years inaynu barwaaqo iyo ku jirno
caruurteennuna hagaagto inaguna meel fiican marno ayaynu rajeynayna insha allah insha allah inagoo dhamtaan haddaba waxaan intaa noogu soo gabagaboobay arrintii caawa aan isku wareysanaynay dhammaadkii sanadka 2017 oo December iyo arrimaha nagu haysta iyo arrimaha khuseeya community-ga Soomaalida sanadkan 2017 nagu haysta Edmonton Alberta Canada iyadoo ay inta badan muujiyeen odayaashu in arrintaanu aysan ahayn mid kaliya ku kooban Edmonton laakiin saamaysa Soomaalida inteeda badan qurbaha ku nool waxaanu rajaynaynaa in ilaahay xal wanaagsan noo keeno ana noqono dad danahooda gata oo midooba danahooda sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum نسمير محمودين